Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Quruxda iyo dhaqanka qaaradda Afrika. Dhaqanka Afrika waa mid aad u kala duwan oo ka kooban isku dhafka dalalka leh qabiilo kala duwan oo mid waliba uu leeyahay astaamo gaar ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika. Waa wax soo saarka dadyoga maanta ku nool qaaradda Afrika iyo qurba joogta Afrika. Dhaqanka Afrika waxa lagu muujiyay farshaxankiisa dhaqanka iyo diinta, dharka, cuntada, heesaha iyo luuqadaha, hadalka dhaqanka. tiro badan oo kala duwan oo dhaqamada qaaradda ayaa laga helay. dhaqan aan ku wanaagsanayn diinteena suuban ee albaxnimada iyo horumarka laga soo gaaray. inkastoo oo dhaqamada Afrikaanka ay aad u kala duwan yihiin, sidoo kale marka si hoose loo darso waxa loo arkaa inuu leeyahay isbarbardhig badan. tusaale ahaan, anshaxa waxa ilaaliyaan jacaylkooda iyo ixtiraamkooda dhaqankooda ay u hayaan, iyo sidoo kale ixtiraam xoogan ay ka haystaan dadkooda da'da ah iyo muhiimadda boqortooyooyinka iyo la taliyayaasha go'aanka laga gaarayo. habka ilaalinta dhaqanka dadku ay isku fahmayaan waxa markaasi u soo gogol fadhiisanaya dadka lagu daada oo inta badan looga dambeeyo dhaqanka xilligaasi nool. Afrika waxay saameyn ku yeelatay qaar ka mid ah wadamada kale ee caalamka, iyagoo tan ku muujiyay rabitaanka iyo karaamada ay leeyihiin in ay la qabsadaan adduunyada casriga. waxaa isbedelaya halkii ay kasii joogi lahaayeen dhaqankooda caadiga. qaar ka mid ah dadka reer galbeedka waxay ku qanciyeen dhaqanka Yurub. dhaqankooda qaaradda ayaa mid ay aad ugu adag yihiin dadka ku nool mantiqada geeska Afrika. qarannimada Afrika iyo dib u soo kabashada dhaqanka ayaa waxa tabagelinaya waxa taabaya ku sii dhiirigelinaya inta badan oo dhowra dadka ehelkooda ku ah dawladaha ugu badan. Afrika ayaa dhiirigeliya qoobka ciyaarka iyo muusikada, farshaxanka, qoraalka iyo dadka qorayaasha ah si ay ula jaan qaadaan dhaqanka iyo barashada bulshada mustaqbalka dheer oo ay dadkoodu ka leeyihiin dhaqanka qaaradda Afrika. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. muuqaalkaas kooban halkaas inoogu eegyahay. fadlan haddaad ka heshay muuqaalka like saar, siina sheer garee, hal qofna ha ahaatee mahadsanid. waqul rabbi zidni cilma.